والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalayaal adduunka meel aad ka joogtaanba waxaan hawada idin soo marinayaa salaan aad iyo aad u qaali ah. nicmooyinka rabbi tabaaraka wa tacaala oo inoogu deeqay waxaa ka mid ah nicmatul awlaad, waa nicmada ubadka. rabbi tabaaraka wa tacaala cidda uu doono wuxuu u hibaynayaa ubad, cidda uu doonana alle madhalays buu ka dhigayaa rabbi tabaaraka wa tacaala. alle wuxuu leeyahay, alle waa midka iska leh samaawaadka iyo dhulka. alle wuxuu doono buu abuuri, cidduu doono wuxuu u hibaynayaa lab mise dhadig. alle cidda uu doonana wuxuu ka yeelayaa madhalays buu ka yeelayaa. walaalayaal, cinwaanka maanta aan rabo inaan idinla wadaago waa mowduuc aad iyo aad u muhiim ah. waa mowduuc mudan in markasta aan isku boorino. mowduuceeni wuxuu noqon doonaa u waalidayo ubadkaaga. waxaa waajib ah in ilmaha loo dooro hooyo wanaagsan iyo aabbo wanaagsan, si ilmaha ay u noqdaan ilmo ka soo baxay hoy wanaagsan. doorashada oorida wanaagsan iyo sayga fiican waa tallaabada ugu horeysa ee la doonayo in la qaado haddii la rabo in la helo ubad barbaarintoodii ay hagaagsan tahay. arrintaasna rasuulkeeni sala allahu calayhi wasalam aada ayuu uga hadlay, wuxuuna ummaddiisu ku booriyey inay guurkoodii ku saleeyaan diinta islaamka, isla markaana isu xushaan diinta islaamka. rasuulkeeni sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi, haddii uu idin yimaado qof aada raalli ka tihiin diintiisii iyo akhlaaqdiisiiba u guriya buu yidhi rasuulkeeni sala allahu calayhi wasalam. marka aada u xusho ubadkaaga hooyo oo habeenka aada isla tagtaan gogosha, waa inaad bisinka qabsataa, tiraahdana ducadii ka sugnaatay nabigeeni sala allahu calayhi wasalam. bismi illaah, allahuma janibna shaytaan wa janib shaytaana maa rasaqtana. ducadan qofkii yidhaahda oo kadibna ilaahay u qoray inuu siiyo ilmo, ilmahaas ma dhibayo shaydaanku weligii. marka uu dhasho ilmuhu waa in loo maraa waddadii rasuulkeeni sala allahu calayhi wasalam uu inoo jideeyey oo ah in dhagaha looga aadaamo. marka uu dhasho waa in loo xiiraa, waa in loo dooraa magac wanaagsan, waa in loo wanqalaalana gudaa. haddii ilaah ku siiyo ubad, waxaa lagaa rabaa inaad u duceyso, uuna duceyso in ilaah kuu hagaajiyo, kaagana dhigo ubad baariya oo ku anfaca noloshaada iyo aakhiradaada. maxaa yeelay ubadka wanaagsani waa sadaqo soconaysa oo barakadeedii ku soo gaaraysa geeridaada kadib. waxaan arkaynaa ambiyadii alle tabaaraka wa tacaala waxay ku duceysan jireen in ilaah uu siiyo ubad wanaagsan. nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam wuxuu ku duceysan jiray, allow iga yeel mid ooga salaada, ilmahaygina ka yeel. rasuulkeeni sala allahu calayhi wasalam waxaa laga wariyey, hadduu ibni aadam dhinto camalkiisii oo idil wuu go-ayaa ilaa 3 mooye: sadaqo soconaysa, cilmi dabadii laga faa'iidaysto, iyo ubad u soo duceeya kolka uu dhinto.